Inter Milan oo u gudubtay finalka Champions League kadib guul cajiib ah oo ay ka gaareen Barcelona. Kooxda Inter Milan ayaa iska xaadirisay finalka UEFA Champions League 2024-2025 kadib ciyaar xiiso leh oo ay 4-3 kaga adkaatay Barcelona lugtii labaad ee semifinalka. Ciyaar ka dhacday garoonka San Siro. Guud ahaan labadii lugood waxay Inter ku badisay 7-6 kadib ciyaar aad u xiiso badneed oo la isla gaaray waqtiga dheeriga. Inter Milan ayaa si xoogan ku bilaabatay ciyaarta iyadoo goolka koowaad uu dhaliyay Lautaro Martinez daqiiqadii 21aad waxaana goolka labaad dhaliyay Hakan Calhanoglu oo rigoor u bedelay gool daqiiqadii 45aad taasoo Inter ka dhigtay inay hoggaanka ku qabato 2-0 qaybta hore ee ciyaarta. Barcelona ayaa qaybtii labaad si adag ugu soo laabatay iyadoo gool ka heshay Eric Garcia iyo Dani Olmo taasoo ciyaarta ka dhigtay 2-2. Rafinha ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee Barcelona daqiiqadii 87aad laakiin Francisco Serbia ayaa Inter u keenay goolka barbaraha daqiiqadii 9aad taasoo ciyaarta gelisay waqtiga dheeriga. David Vertez ayaa dhaliyay goolka afraad ee Inter daqiiqadii 99aad kaasoo noqday mid ka go'aamiyay ciyaarta. Goolahayaha Inter Yann Sommer ayaa sameeyay badbaadin muhiim ah isagoo ka hortagay weeraro halis ah oo ay Barcelona ku qaaday. Guushan ayaa Inter Milan u suurtagelisay inay gaarto finalka Champions League markii saddexaad. Waxay finalka la ciyaari doonaan kooxda u soo baxda semifinalka kale ee u dhexeeya Paris Saint-Germain iyo Arsenal iyadoo finalka la qaban doono 31 May 2025 waxaana lagu qaban doonaa garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich. Dhinaca kalena mushaarka waalida ah ee Al Hilal u soo bandhigtay Bruno Fernandes oo la shaaciyay. Bruno Fernandes weli kama uusan jawaabin dalab heshiis lacageed oo weyn oo uga yimid kooxda weyn ee Saudi Pro League Al Hilal kadib wadahadalo u dhexeeyay wakiilkiisa iyo kooxda fadhigeedu yahay Riyadh toddobaadkii la soo dhaafay. Sida ay qortay Daily Mail, wararka ayaa sheegaya in Al Hilal ay soo bandhigtay dalab aan qasab ahayn oo ah heshiis 3 sano ah kaasoo Bruno Fernandes ka dhigi lahaa mid sanadkii mushaar ahaan u qaata qiyaastii 65 milyan oo pound. Wadahadalada labada dhinac ayaa socday ilaa Isniintii la soo dhaafay, balse Fernandes weli go'aan kama uusan gaarin dalabkaas. Inkasta oo wararka bariga dhexe ay sheegayaan in uu jiro qodob qandaraaskiisa ku jira oo 60 milyan oo pound lagu iibsan karo. Ilo ku dhow Manchester United iyo Al Hilal labaduba way beeniyeen sheegashadaas. Fernandes ayaa saxiixay heshiis cusub oo uu la galay United sanadkii hore, kaasoo ku sii haynaya garoonka Old Trafford ilaa 2027 iyadoo uu jiro ikhtiyaar sanad dheeri ah. Manchester United ayaa weli ku kalsoon in xiddiga 30 jirka ah uu kooxda sii joogi doono, isla markaana uu kaalin muhiim ah ka ciyaari doono dhismaha kooxda cusub oo uu hogaaminayo tababare Ruben Amorim. Ilo ka tirsan kooxda ayaa ku adkeysanaya in Fernandes aan la iibin doonin, inkasta oo Al Hilal ay haystaan awood dhaqaale iyo doonista ay u qabaan in heshiiska la dhameeyo ka hor Club World Cup iyo xagaagan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta.